بسم الله الرحمن الرحيم. قلها وزيرada gudoomiyaha gobolka saraakiisha kooxda Bambayda howlwadeennada degmooyinka baahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waa maalin weyn, waa maalin farxad leh, waa maalin taariikhi ah, waa maalintii aan qaadanay xorriyadeenna, waa maalintii 26 juune ee kasoo wareegtay 58 sano kasoo wareegtay sanad guuradii aan kaga xorownay gumaysigii Ingiriiska. waa maalintii dadka Soomaaliland ama dadkeena woqooyi ay xoriyada gumaysiga iska tuureen. waa maalin weyn, waa maalin taariikhi ah. alxamdulillah maanta waxaan joognaa 58 sano kadib waxaan taagannahay meel aan dib ugu eegi karno oo taariikhdeenna aan dib u fiirin karno oo aan wax badan ka baran karno. waxa ay tahay xorriyadda, waxa ay tahay midnimada, waxa ay tahay qaranimada Soomaaliyeed. kulligeen haddaan nahay Soomaali meel kasta aan joognana waxaa naga saaran waajibaad, gaar ahaan annagu wuxuu naga saaran yahay waajibaad sidii aan ummadda naga dambaysa, jiilka naga dambeeya aan uga tegi lahayn taariikh. waxaan ka shaqaynaynaa horumarka Soomaaliya kulligeen, waxaan ka shaqaynaynaa wanaagga Soomaaliya kulligeen.